ها وان سدغالنا اما كا قلدنا اما way qaldaneed ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaalad ka raadinaysa صح shakadu qarsooday iyo baan iyo shakada waa laga soo gudbaa dartaa saaxiibayaal waxaad ogeydeen inay faraha bulshada maanta qabsatay inay gabadh dishay fanaanada caanka ah ee Rasmi Reis balse haatan Rasmi Reis laftarkeeda ayaa qiratay inay dishay gabadhaasi waxaana soo fadhiistay barta ay ku leedahay YouTube-ka ee Rasmi Reis halkaas oo ay ka qiratay inay gabadhaasi iyadu dishay midana labaadna ay sheegtay inay ka gardareed iyadu oo iyadu aysan ka gardareyn oo gabadha ka gardarada darteedna intay hablo soo kaxaystay dishay ugu dambeyntiina waxay sheegtay inay maanta ka baxsatay gurigeeda oo degan tahay hadan waqtigan xaadirkan guriga walaasheed oo in yidna degan isla magaalada Nairobi halkaas oo waqtigan ka soo duubaysa fiidiyoga saaxiibayaal balse waxaan idinaynaa arintaas oo faahfaahsan oo dhameystiran balse saaxiib waxaan ka codsanayaa intaad muuqaal guda galin inaad fiidiyoga like saarto sina share gareyso in sidoo kale barteena YouTube-ka waxa ku qoran Cabdalla Deeqsi san aad ku arkaysa qoraalka aan soo dhignaba Cabdalla Deeqsi ayaa ku qoran waxa sameynaysa insha Allah intaad gasho YouTube Cabdalla Deeqsi ku qor walaal macaan subscribe-ka nagu caawin waad mahadsantahay beedkeena Cabdalla Xuseen فلوكا أيوه لقتها إلاوين ما سند waxaan soo ogeyn maanta waxa baraha bulshada aad u qabsaday inay Rasmi Reis iyo Natasha wada dileen gabadh taasi oo ay sheegtay in dad badan ay lahaayeen Rasmi Reis may waalatay Rasmi Reis maxaa ku dhacay Rasmi Reis maxaa yeelay Natasha waxay gabadh degan maxaa iyadana ku dhacay maxaa labada hablood ee wada qablaha degan maxaa qaatay maxaa ku dhacay hablaha maxaa arintaasi aad baraha bulshada maanta oo haystay saas darteed waan wada ogeyno aniga xataa laftarkayga waxaan ka soo bixiyay reaction balse in Rasmi Reis iyadu arintaas qayb ahaan way qarsan tahay qayb ahaan dadka la weydiidan tahay saas oo ay tahay in wali saacad iyadu umay wada sheegan balse qayb way diidanto waxay leedahay in gabadhaas aniga maaha sidoo kale waxay leedahay way iga qaldan tahay anaan ka qaldanaa in ama anaan ka qaldanaa laakiin se wali waxna kala saarta ma hayno waa hadal iska hor imaanay runtii in xataa waad arkaysaan dad caan ayaa ka hadlaya oo ay ka mid tahay iyada keenay soo qaatay laftarkeeda quruxda qoyska in dad badan oo caan ah ayaa ka hadlay arintan waan arrinka cad soo maqlaysayna waxay ahayd codkii Rasmi Reis oo sax ah ama codkii Rasmi Reis oo caadi ah ee ma hayn wax been abuur ama lagu sameeysan karo ama wax Rasmi Reis la oran karo loo gafay iyada ayaa gabadhaasi dishay ee la cadeeyay iyada ayaana in u soo kaxaystay koox kadib markay iskhilaafeen arrintaas adigu maxaad ka leedahay saaxiib sita gurigeyga ma joogi waa ujeedaan fadhiyo waxaan ku duwaay guri walaashay joogaa saas la agligeed anoo hadda magaalada ka imaaday oo daalan waxa ay ku kalfiina xilliga video soo duubay waxay tahay in dadka walaalada ee Soomaaliyeed muslimiinta ah qanciyo video jira aan maanta war waxa saaxiibayaal sadoo arkayseenba arintan waxay ahayd arin iska cad taas oo ay sheegtay in guriga walaasheed u baxsatay Rasmi Reis waxaan leeyahay walaal wad qaldantay gafna wad gashay bil aad muqan foo ogolaayay gabadha in walaashaya isa saamaxa meel taga ma la dhahaa meelaha in isku saamaxa ba asligida dad xabsi ka badbaaday oo maanta waxa la soo sheegay in xidhan tahay laakiin waqti cadarkan ma xidhnid laakiin Rasmi Reis waxaan ku leenahay walaal gabadha walaashayna soo gashay ma ahayn gaf ay kula kacday raali gelin ka bixi iyadana raali gelin insha Allah in sidoo kale Rasmi Reis waxay ahayd gabadh aad oo fiican aad oo asturan taas oo single ku ahayd magaalada sidoo kale waxay ahayd gabadh iska asturan gabadh akhlaaqad badan oo dadka Soomaalida aad u xiisan jireen markay ay isqabeen Farxayare oo ahaa wiil ay muddo badan asqabeen aba isku dhalay hal anug balse ugu dambeyntii Rasmi Reis way kala tageen Farxayare ugu dambeyn waxa ku laabatay magaalada Nairobi in halkaas oo nolosheeda ka sii wadatay kana dhisatay hay sheegtay si ay u sheegteen hay meherada furatay insha Allah ganacsi ay samaysatay balse hadan Rasmi Reis waa single haysata hal anug waxayna ku nooshay isla magaalada Nairobi balse waxa soo shacbahay maanta galinkii hore inay Rasmi Reis dishay gabadh shalay toole taasi oo haysta xun jirtilniyada iyo Natasha oo inna gabadh YouTuber ku nool magaalada Nairobi saaxiib laakiin anagu arrintan cadeen iyo xaqiiqada uma hayno balse video-ga marka aad aragto soo loo dilay gabadha waxa ay video iska cad oo qofka la dilaya codkadana waa hay codkii Rasmi Reis oo caadi ah dil gabadha ayay aad ugu dhawaaqaysay balse in iyadu qayb ahaanteeda way tirsan tahay qaybta kalena way qiranaysaa dad badan oo caanana waxay sheegayaan inay Rasmi Reis tahay balse Rasmi Reis waxaan leenahay hadda arinta koobka sameysana Ilaahay ha ku adigana hakaga dambi dhaafo macna dib baad gashay gabadha walaashayna cafiska dalbo oo iska raali geli hadii aan sameeyno gaf tahay oo ku gafiyaan Soomaaliyeedna waa wax runtii aad u xun oo bilcaandiga ay YouTuberreedu ay gaf kula kaceen saaxiibkay daawanayay quruxda badan oo adiguna waxaad ka soo dhiibataa comment-kan ugu rawaaristaada muuqaalkana la gareey